الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحان ربا إنان كلا وذاقو ذكري أما الدعو آدو قيمة بضن oo lagu aqriyo dadka markay isha ku dhacdo. Abi Saciid al-Khudri radiyallahu anhu wuxuu warinaa xadiidkan wuxuu ku jira Sahih Muslim. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam inuu xanuunsaday. Markuu xanuunsaday kadib waxa u yimid Jibriil alayhi salaam. Markaasuu wuxuu ku yiri: "Ya Muhammadow, atashtaki miyad xanuunsan tahay?" Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri: "Bala, ha wa xanuunsanahay." كدب جبريل عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم وحوكو أقري ذكريا أما الدعاء: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. ولا ليالدعاء أما ذكريا ودعاء قيمة بضن. نبي صلى الله عليه وسلم مركو حنوص أي جبريل كو أقري دعانا سانتا أقيمها بضن معناها يا ربنا إنا فهمنا سان أحفظنا إن شاء الله. دعاء وحي كب الله بسم الله أرقيك. الله أود له الدون كان لنقع أنت كهايا مقعيس أيان كو حرسي حرا. الله أكبر. من كل شيء يؤذيك وحان كاغا حرسي حرا wax walba oo ku dhibaayo, wax walba waxay rabtaa noqoto, ama il ha noqoto, ama jinni ha noqoto, ama xanuun kale ha noqoto, wax walba oo ku dhibaaya ayaan kaaga xirsi xira. tan saddexaad: min sharri kulli nafsin, naf walba sharteeda, wax walba adduunyadan joogo, ama insi ha noqdo ama jinni ha noqdo, shartoodane waa kaa xirsi xiraho magaca ilaaha kugu xirsi xira. oo cayni xaasid, waxaan kaloo kaa xirsi xiraa qof xaasid ishiisa. dadka qaarkood xaasidiin waaye, wax wanaagsan markay arkaan bismillaah maasha allah tabaarakallah inay yiraahaan ma yaqaanaan. markay wax arkaan waxay leeyahay allah kan maxaa waay, ama abay kan maxaa, wax bay dhahayn, ama dikal waxa bal inuu fiiriyo waa cajiibiyay maasha allah tabaarakallah ma dhahayo. kaas waa xaasid. marka daa wax wanaagsan aragtid oo ku cajibiyo maasha allah tabaarakallah dheh, ishaada ka ilaali dadka oo xaasid ha noqonin. jibriil alayhi salaam markuu afartan wax sheegay magaca ilaahay markuu ugu xirsi xiray kadibna yiri min kulli shay'in yudiik, wax walba ku dhibayaan ka magan gelina. tan saddexaadna yiri min sharri kulli nafsin, naf walba sharteedan ka magan gelina. tan afaraadna wuxuu yiri xaasid, il walba xaasid leeyahna waa ka magan gelina. markuu afarta sheegay wuxuu yiri allah yashfiika, ilaahayga awoodda leh ha ku caafiyo. wuxuu ku soo gabagabeeyay kadib bismillaahi urqiika, tuu ku bilaabo ku soo xiri magaca ilaahay ayaan kugu xirsi xira. ugu dambeyntii walaaliya, dhikrigan ama ducadan waa duco aad u qiimo badan. qof xanuunsan hadaa aragtid ku aqri. jibriil ayaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam ugu xirsi xiray. xifdi, adiga isku aqri, caruurtaada ku aqri, qof kastoo muslim oo xanuunsan hadaa aragtid ku aqri. inta kaliya ma ahane walaalaha kale u sii gudbi. waxaa laga yaabaa qof u baahan inuu jiro oo aqoonin dhikrigan, u gudbisa ajirka ku heshid. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga xifdiyo il walba iyo xasad walba iyo dhib walba. آمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. وإنه حلقة soo socoto walaalaha kale u sii gudbi. waxa kale oo jirto riwaayo kale jirto oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday Aisha inuu sheegayso inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu xanuun jibriil u yimaado ku aqri jiray. hadda markuu jibriil u yimaado muxuu ku aqrin jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam? حلقة soo socota ayaan taasna ka jawaabayna insha Allah taala. walaalihina kale u sii gudbiya. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.